meelaha ugu quruxda badan waxa weeye markuu tilmaamayo horta gabaygu wuxuu ka warramayaa jiidaal oo maray iyo socodkii iyo dhibtii la kulmay inta dambe uu ka sheegayaa in sida loogu ballan furay laakiin inta hore dhan wuxuu ka hadlayaa dhibaatadii uu socodka soo maray waana gabayada u xidhma u dhaca saddex leeyahay sayidina Cabdullaahi Xasan gabaysu badnaayeen marka haddaan inta hore ku yar bilaabo wuxuu ka bilaabayaa Xuseen Dhiqlu kula qabsanaya raggii gabayada u fari jiray Xuseen uu jikaar lama hadlay jaalkay baa tahay adaan iga jadeer wicin markuu jaahilkii diday jaan hooyan adaan qaban markuu jiitay gacalkay ragga gaala jeefaafi waa ahal jaxiimaad jahannamo inay galahayaan way ugu jaamaca ee adaa jamalka soo raray markay jararu guureen jinni weeye ruuxaan ahayn jaadka aad tahay dadka kale ka jeestayadaan jaari ku ahay waxaan gaajo ka reebaya samanka jiilaale sagal jiidan caad silcsan iyo jarar ilaacaya onko jawladaad soo jifraday jahada oo qiiqday jawjawlii xalay sidii jimin u guuxaya jirka daay jaleysay hagugi harada oo jiifta jidhama afka wadahaye jabadka ceegaaga jaqaqarida geedaha noqdiyo xamuska oo jiiqle sidii jaawo dhana loo shubay baan jeelka kaabi inay waxaan kugu jalbeebinahayaa jawhartii gabaye jalwiskayga maqal caawa waan jalaleebayay kaasi waa bilowga laakiin inta dhexe ee uu ku tilmaamayo dhirta iyo bahalaha iyo waxa soo maray wuxuu yiraahdaa xagar jiqa telefoon iyo qudhacina waxiiraya jirdoolaha galoolka iyo sarmaan janafku xiimayo jimbac surad la jeeqays ku baxay jiica iyo siiqda jilab xanaf la jawdheer qalaalan jabi xanuun weyle jirmad qudax la jiqjiq waxmudu jeerin iyo yooco jirda badan jaroon iyo qaroon jaafil iyo jeerin jafka hawdka guuraha waxaan jar iska xoorayay wixii jaani caalaf low libax igu jibaadayay raadkii aan ku jeelaa wuxuu daba jadeemayay jaldaftiisa qoobka ah waxaan dib u jaleecayay jaajuuska geesaha waxaan jirayay ruuxayga waxaan jaamagaarkii cabsida jimanka buurayay wiil joof leh iyay waxaan jilif ku keenaashay jinna qaba shabeele wuxuu igu jimbaacayay juq waxaan u soo idhi dugaag jala butaynaya waa jiidaasha uu ka warramay sida uu dibta u tilmaamay inta waraabe iyo balaayo iyo soo maray iyo markii dambe uu soo galay